madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Gudlaawe iyo wafdi baldaaran oo uu hogaaminayo ayaa goordhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cali Gudlaawe ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, wasiiro, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo loo diyaariyay soo dhaweyntiisa. madaxweynaha Hirshabelle ayaa u yimid caasimadda dalka ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee maanta ka furmay tendhada Afisiyuun ee xeyndaabka Xalane. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xundubey oo horkacayay soo dhaweynta wafuudda ayaa uga mahadceliyay imaatinka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Gudlaawe ee magaalada Muqdisho, isagoo hadalka ku wareejiyay madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble oo ka mid ahaa dadkii soo dhaweynayay madaxweynaha. madaxweyne soo dhawow sharaf inoo tahay, waxaan hubnay inaad u soo horeyn lahayd madaxda imaanaysa, laakiin dhibaatooyinka dhaca awgood ayaad u soo daaday, waana la garowsan yahay arrintaas. marka alxamdulillahi rabbil caalamiin in aad maaragtay aad noo timiday adoo nabad qabtaan. marka hore waxaan ku soo dhaweynaa inuu hal eray ka yiraahdo madaxweynihii hore inuu yiraahdo asir marka soo dhawow. marka cadaalad ay Soomaali u baahan tahay inay hore u socotay, u baahan tahay doorashay, u baahan tahay Soomaali inay aado. intaasaan marka ugu la dardaarmaynaa, aad iyo aadna waa kuugu mahadcelinaynaa. soo dhawow madaxweyne. aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan, qadirinta, walaal jacaylka iyo waji furaashada ay ku jirto ee halkaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka noogula soo dhaweeyay waa ka mahadcelinayaa. runtii aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay. waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagaad samaysay, Ilaahay ka abaalmariyaan leeyahay. aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay. ujeedada safarkayna ra'iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray, waxaana rabnaa inaan ka qayb galno haddii Ilaahay raalli ka noqdo shirka wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka. waxaana rajaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo inay walax ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo, mustaqbalkan ay u aydo inay ka soo baxaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsantiin. shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa dhamaystirka heshiiskii 17 Sebtembar iyo xalinta khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada dalka ka dhacaysa oo madaxda aysan weli heshiis rasmi ah ka gaadhin. madaxda dowlad goboleedyada dalka sida Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle oo ka soo degay garoonka Aadan Cadde ayaa ku wada sugan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka qayb galaya shirka.